madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay inay gurmad degdeg ah iyo taageero buuxda ay la gaarto dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay dhulgariirkii toddobaadkan ka dhacay dalka Morocco ee ku yaala dhanka waqooyi ee qaaradda Afrika. balse madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sidoo kale sheegay inay u xayiran yihiin fasax ay ka sugayaan boqorka dalka Morocco Boqor Mohamed iyo mas'uuliyiinta kale ee waddanka Morocco. hadalka madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa imaanaya xilli uu aad u liito xiriirka ka dhaxeeya wadamada Morocco iyo Faransiiska, iyadoo ay xusid mudan tahay in labada dawladood ay isku khilaafsan yihiin arrinta dhulka Western Sahara ee ku yaala ama dhaca dhanka waqooyi galbeed ee qaaradda Afrika. dawladda Morocco ayaa dawladda Faransiiska ka doonaysa in ay dhulka Western Sahara u aqoonsato inuu yahay dhul ka tirsan dalka Morocco. haddaba iyada oo taasi ay jirto ayaa waxaa haddana muuqata in dalka Faransiiska ay ku nool yihiin 1.5 milyan oo qof oo ka soo jeeda dalka Morocco, halka gudaha dalka Morocco-na ay ku sugan yihiin 51,000 oo qof oo ah dad u dhashay waddanka Faransiiska. taas oo ka dhigaysa in xiriirka u dhaxeeya dadka labada dal inuu yahay mid wanaagsan, balse xiriirka u dhaxeeya siyaasiyiinta iyo labada dawladood inuu yahay mid aad u hooseeya. dawladda dalka Morocco ayaa weli ka jawaabin hadalka madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ee ah in dawladdiisu ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato gurmadka degdega ah ee loo fidinayo dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay dhulgariirka. warbixintan waxay noo soo koobaya in la socodsiinayana anigu ah Maxamed Saciid Saxaaf. intaanu ku kulmayno warbixinteeda xigta waxaan idinkaga tegayaa meel walbaad caalamka ka joogtaan. sidaan siiyo nabadgelyo.